George Weah waxa uu ku dhashay magaalo isku raran ah oo ka tirsan magaalada caasimadda ee Monrovia ee dalka Liberia halkaas oo markii dambe uu ka aaday qaaradda Yurub kadibna uu noqday ciyaaryahan caan ah haddana waa madaxweynaha dalka Liberia haddaba sidee halkaas uu ku gaaray George Weah magaalada yar ee uu ku koray Weah waxa lagu magacaabaa Clara waxayna Monrovia u jirtaa meel loo soconayo saacad iyo bar markii baabuur la wato Weah ayaa halkan waxa keenay waalidkiis si uu la noolaado ayeeydiis xilligaas waalidkiis waxa ay ku noolaayeen degmada Gracru oo ah meel aad u fakhisan taariikhdaas fakhnimada ayaa taageerayaashiisa agtooda uu uga noqday qof haliyey ah oo dadaalay isaga oo yar ayuu bilaabay ciyaaraha kubadda cagta dadaal badan oo uu sameeyay ayuu gaaray heerkan markii uu ka soo tagay degmada Clara noloshiisana isbedel uu ku sameeyay xitaa waxa uu dhexda uga tagay iskuulka si uu horumar uga gaaro kubadda cagta go'aankaas oo ahaa mid uu ku bulaalay ama uu ku baraaray balse dhibaatooyin waxa uu keenay markii uu damcay in uu u tartamo madaxtinimada dalka Liberia mustaqbalka George Weah waxa uu isbedelay kadib markii tababare Arsene Wenger uu arkay isaga oo ka dheeraya garoomada dalka Cameroon maamulaha ayaa markiiba Weah geeyay Yurub halkaas oo uu saftay kooxaha AC Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City iyo kooxo kale intii waqtigu socday Weah waxa uu qaanadaha armaajadiisa ka buuxsaday abaalmarino kala duwan oo ay ka mid tahay abaalmarinta ciyaaryahanka sanadka ee FIFA iyo abaalmarinta Ballon d'Or oo uu qaatay sanadkii 1995 balse Weah weligiis ma uusan hilmaamin dalkiisa hooyo kaas oo markaas ku jiray dagaal sokeeye oo ay ku dhinteen dad gaaraya 250,000 oo qof mararka qaarkood jeebkiisa ayuu lacagta ka bixin jiray si xulka qaranka dalka Liberia ay ugu sabtaan ciyaaraha dibadda Weah waa muusigaysto hiba leh wuxuu mihnada muusiga iyo heesaha ku laabtay sanadkii 2014 xilligaas oo isagoo kaashanaya fanaaniin reer Ghana ah uu soo saaray heeso caan baxay oo looga digayay dadka cudurka Ebola waxyaabahan yaryar ee uu Weah sameeyay ayaa aad loo xasuustaa ilaa maanta mar ayuu noqday danjiraha hay'adda carruurta adduunka ee UNICEF wuxuuna ka qayb qaatay arrimaha samafalka madaxweynihii hore ee Liberia Charles Taylor ayaa mar uu uga shakiyay in uu doonayo kursigiisa madaxnimo kadib markii uu Weah diiday in uu okiyaalaha iska bixiyo xilli labada nin ay kulmayeen malaha taas wuu ku saxsanaa Taylor Mr. Weah ayaa sameeyay xisbi CDC la yiraahdo wax yar uu ka hor doorashooyinkii 2005 wariyaha BBC-da ee Jonathan Baye ayaa sheegay in uu dareemay in uu damac Weah uu ku jiro in uu qabto xilka madaxtinimada dalkaas waxaana ahayd xilligaasi sanadkii 2004 waxaana ay wada joogeen wariyaha iyo Weah magaalada Monrovia caasimadda dalka waxa uu xilligaas ahaa danjiraha UNICEF shaqadiisana waxa ay ahayd in uu ku dhiirigeliyo da'yartii dagaalamaysay in ay hubka dhigaan Weah ayaa mar uu saxaafadda la hadlayay waxa uu isla wariyihii BBC-da u sheegay in xilligan ay da'yartu u bannaan tahay in ay hormuud ka noqdaan dalka taas oo uu la jeeday hadal sarbeeban oo ah in uu isu taagayo xilka madaxtinimada dalka balse Weah markii uu tartan la galay haweeneyda ka soo baxday jaamacadda Harvard ee Ellen Johnson Sirleaf waxaana dhacday in aqoon la'aantiisa iyo khibrad yaridiisa ay ka dhigtay in si sahlan looga guuleysto mid ka mid ah wargeysyada xilligaas soo baxay ayaa ciwaan bogga hore far waaweyn ku soo qoray caannimo iyo aqoon oo loola jeedo in tartamayaashu ay sidaa kale yihiin Weah oo caannimo wata iyo Sirleaf oo cilmi badan leh Sirleaf ayaana markaas ku guuleysatay doorashadii xilliga waxayna xilka qabatay 2 xilli wariyaha BBC-da waxa uu Weah ku tilmaamay nin shucuurtiisu ay hagto oo wareysiyada bixiya marka uu isagu rabo in saxaafaddu uu la hadlo balse aanan ka yeelin saxaafadda in uu wareysi siiyo marka ayagu doonayaan sanadkii 2007 ayuu sheegay inuu dhameeyay dugsi sare 4 sano kadibna waxa uu ka qalin jabiyay jaamacad isaga oo qaatay shahaadada maamulka ganacsiga oo ka qaatay jaamacadda Delaware ee gobolka Florida dalka Mareykanka sanadkii 2014 ayaa loo doortay xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee Liberia
isaga oo ka soo galay gobolka Montserrado oo ay qayb ka tahay magaalada caasimadda ah ee Monrovia. isla sanadkaas ayuu u tartamay madaxweyne ku-xigeenimada Liberia balse kuma uusan guuleysan. sanadkii 2016 ayuu ku dhawaaqay in uu mar kale isu sharaxayo xilka madaxtinimada dalkaas, taas oo ay dadku aad u jeclaysteen. xidigii madoobaa ee kubadda cagta George Weah ayaa isku daygii labaad waxa uu ku noqday madaxweynaha dalka Liberia. DMI